wixii dalkayna ka baxaan cunaynaa cadow shisheeye yow naga faa'iideysan cadow shisheeye yow naga faa'iideysan qaybo badan oo ka mid ah Muqdisho waxaa ka dhaqan galay amarkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ahaa goobaha keeni kara kulanka dadweyne sida goobihii waxbarashada kulamadii caadiga ahaa ee bulshada iyo sidoo kale isu socodkii dhanka duulimaadka taas oo buddig u ah ka hortagga dilaaga sida fudud ku faafa ee coronavirus dakhliga yar ee haddaan Soomaalina soo mara in laga joojiyo waajaadka iyagu ha ku khasaaraan cagaarkooda ha heestaano annagu dooni mayno waxaan cabaynaa cunto bariis basmatiyaan cunaynaa waxaan cunaynaa furlaato waxaan cunaynaa hilib waxaasaan cunaynaa wixii dalkayna ka baxaan cunaynaa halkan waa beerta qaadka ee ku taala nawaaxiga Bacadlaha degmada Xamrweyne ee gobolka Banaadir waa ay ka dugan tahay sida ay ahayd maalmo ka hor marka loo eego xagga saxmadda iyo dadkii u soo ganacsi tagi jiray maadaama ay saameyn ku yeelatay amarkii dawladda oo waxa hakad galay qaadkii Soomaaliya inta badan uga imaan jiray dalka Kenya hadda ayaamahan waxa arkaysa ilmaha aabood meeqsan arkin oo hadda habeenadan fiid ku xaran aabo maxaa kugu dhacay aabo xabiigu ma dhicin ana go'aan gaar gurigeyga ina fiid soo yida ma aha waa jaadka waay dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa jaadka inay u sameeyso barnaamij jaadkan Soomaaliya looga joojinayo shakhsiyaantii oo darsadani qaadnaanta oo darsada waayo xaq dhaqaale iyo ilaahay kula degroyahay shaqada xataa aad mu caabun hadda maqaadana soo quraacday xilligan kala qaad afkooda aniga saacanta aan la joogo ani qaad waan habeenkii saacada reeba jiray marka ka dago qaadka ma dhiga jiray habeenkii subaxii aan cuni jiray waa ku shaqay jiray qaadka ku shaqay halkan waxa ay ka mid tahay goobaha qaar ee lagu iibiyo shaaxa dadka qaadka cuna ayaa yimaada halkan isla markaana shaax ka iibsada qaarkood qaadka ayayba ku cunaan waxa ay noo saameysay meeshan maqaaxi ayaa noogu taala shaahan ku karinaa dadka soo fariista miisadaha iyo kuraasaada faaruqa baabka wada xiran ayaa lagu fariistaa annagu shaah ayaan ka iibsanaa ayaan waxaan ka helnaa muxuu biilasha caruurteen iyo danteen ayaanu ka helnaa intii waanu weyn way naga go'do dawladdu noo danayn maysa annaga shaqana ma siin oo waxa weyn dad weyn meela ka shaqaysan ma siin wixii aan ku dhaqdhaqayno way naga goysay inkastoo saameyn togan iyo mid toban ay ku yeelatay ganacsatadii qaadka halkan ku iibin jiray iyo kuwa qaadka cuni jiray joojinta qaadka lagu sameeyay si looga hortago caabuqa COVID-19 oo ah xanuun si daran u saameeyay wadamo badan oo caalamka ka tirsan Dahabo Maxamed Xuseen waxay ka mid tahay ganacsatada yaryar ee Bacadlaha wax ku iibiya nawaaxiga suuqa qaadka lagu iibiya ee degmada Xamrweyne ee gobolka Banaadir bal waxay ka warramaysaa saameyn intee la'eg ayuu ku yeeshay ganacsigeedan yar ee halkan subax walba ay la timaado dad socda ma lahan meesha dhan firaaqay noqotay anaga jaad ma gadno laakiin dadka gato meeshayna imaadaan intay fiiriyaan wax naga gataan laakiin meesha hadaan bal iimaaniya wax ka gadanayo cid wax ka gadanaysa ma lahan marka saas darteed anaga kee wax naga galay ma lahan inay qaadka fasaxaan oo Soomaalidana ay shaqaystaan hadan ugu jirtaa kaliya coronavirus anaka ilaahay aan ka magan galna marka hore Allahumma najina ilaahan ka magan galnay mis arkayno naga dad muslimiin ahna 100% muslima ma garatay dawladdu waxay ayaga u ladan leedahay ayaga u taala anaga shaqo kuma leeyin anaga inaan shaqaysana danteena ku jirtaa kaliya nuxurka sheekadan ayaa ah in magaalada Muqdisho xilligaani laga dheehan karo muuqaal ka gedisan kuwii hore marka loo eego dhanka dhaqdhaqaaqii bulshada taas oo sabab u ah cabsida laga qabo faafida caabuqa gilgilay dunida ee coronavirus Cabduqaadir Maxamed warbaahintiisa Muqdisho